madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegtay madaxweyne ugu magacaabay Ibraahim Cumar Mahad Alle Ibraahim Dheere inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir waxaana xilkaasi laga qaaday Xuseen Maxamed Nuur. madaxweynaha ayaa markii uu tixgeliyay waayo aragnimada uu mudanuhu xilka loo magacaabayo u leeyahay howlaha loo magacaabayo waxa uu soo saaray xeerkan. madaxweyne Farmaajo ayaa u rajiyay Ibraahim Dheere in uu eebe u fududeeyo mas'uuliyadda culus isaga oo kula dardaarmay inuu si hufan u guto waajibaadka loo igmaday. xeerka lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir ayaa ku dhaqan galay saxiixa madaxweynaha ee Khamiistii taariikhduna ay ku beegneed 23 May 2019. sida ku cad taariikh nololeedka Ibraahim Dheere wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sanadkii 1975. waxbarasho hoose iyo dhexe wuxuu ku qaatay dugsiga Axmed Warsame ee isla Beledweyne. waxbarashada ka horeysa heerka jaamacadda ee u dhiganta dugsi sare wuxuu ka dhigtay dalka Holland. shahaadada koowaad ee jaamacadda wuxuu ku diyaariyay culumta maamulka iyo xisaabaadka. wuxuu la soo shaqeeyay hay'adda UN Boss isagoo la taliye ka soo noqday unugii siyaasadda ee Villa Soomaaliya inta u dhaxaysay 2013 ilaa 2015.